Asalaamu calaykum kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Lionel Messi oo hal shardi ku xidhaya ku laabashadiisa kooxda Barcelona, Real Madrid oo heshay beddelka tababare Carlo Ancelotti, xidig iska diiday kooxda Arsenal, PSG oo degsatay qorshe ay kula wareegayso xidiga kooxda Manchester City ee Bernardo Silva. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dhasiina shargaray si barnaamijkeena asxaab badan u gaaro. Mahadsanidin. Lionel Messi ayaa lagu soo waramayaa in uu shardi ku xiray dib ugu laabashadiisa kooxda Barcelona. Xidiga reer Argentina ayaa doonaya in uu dib ugu laabto Barcelona mushaarka yar, laakiin waxa uu doonayaa in dakhliga kooxda soo gala ay ku sameyso marka loo sameynayo kulan sharafeed uu ciyaaryahankan kaga fadhiisanayo ciyaaraha. Sida laga soo xigtay wargeyska Mundo Deportivo, xidigan ayaa xiiseynaya inuu dib ugu laabto Barcelona, waxaana aad ugu badan in uu u dhaqaaqi doono kooxda Barcelona. Kooxda PSG ayaa dooneysa in heshiis cusub ay ka saxiixdo xidigan, laakiin waxaa ka hor istaagi kara xeerka dhaqaale wanaagga UEFA maadaama lagu qasbay in ay dhimaan mushaaraadka ay bixinayaan. In Messi la fasaxo waa mid ka mid ah dooqyada Barcelona ayaa diyaar u ah inay dib u soo celiso xidigani, laakiin xidiga ayaa Barcelona ka qaadan karin mushaaraadkii uu hore ugu qaadan jiray kooxda. Sidaas daraaddeed Messi ayaa diyaar u ah in uu aqbalo in mushaaraadkiisa inta badan la geliyo kulankiisii ee uu ku macsalaameyn doono kooxda. Waxaa sii xoogeysanaya hadalhaynta ku saabsan in waqtiga tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti uu soo dhamaaday. Magaca tababare Carlo Ancelotti ayaa kasoo muuqday liiska tababarayaasha bedeli lahaa tababaraha xulka qaranka Brazil kadib markii laga eriyay guuldaradii kasoo gaartay wareegga dhamaadka tartanka Champions League. Si laga soo xigtay wargeyska Football España, madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ayaa mar hore diyaarsaday liiska tababarayaasha u sharaxan in ay bedelaan Carlo Ancelotti. Wararka ayaa sheegaya in Perez uu u arko halyeyga Real Madrid ee Xavi Alonso dooqa koowaad ee Carlo Ancelotti haddii uu ka tago kooxda dhamaadka xilli ciyaareedkan. Alonso ayaa haatan tababaro u ah kooxda ka ciyaareysa horyaalka Bundesliga dalka Jarmalka ee Bayer Leverkusen, waxaana uu ilaa haatan ka hayaa kooxdaasi shaqo fiican. Waxaa laga yaabaa inuu noqdo tababaraha cusub ee kooxda Real Madrid mustaqbalka dhow. Alonso ayaa Leverkusen hogaaminayay 24 kulan ilaa haatan, waxaana uu badiyay 13 ka mid ah 4 kulan oo uu barbardhac la galay, waxaana laga badiyay 7 kulan. Carlo Ancelotti ayaa la sheegayaa in uu tababaro u noqon doono xulka qaranka Brazil. PSG ayaa dejisay qorshihii ay kula wareegi lahayd xidiga kooxda Manchester City ee Bernardo Silva. Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay go'aansatay in ay dalab aad u sareeya ay ka geyso xidiga kooxda Manchester City ee Bernardo Silva. 28 sano jirkan ayaa sii xoogeysanaya wararka la xiriirinayo inuu ka tagi doono garoonka Etihad Stadium in muddo, waxaana daaha laga qaaday bishii January in uu fursad u haysto ka tagida kooxda Manchester City. PSG ayaa isku diyaarinaysa in ay dib u dhis ku sameyso kooxdeeda kadib fashilkii Champions League ee xilli ciyaareedkan. Sidaas daraaddeed kooxda reer France ayaa saxiixa xidigan ee Bernardo Silva ka dhigtay bartilmaameedkooda ugu weyn ee suuqa xagaagana. PSG ayaa isku diyaarinaysa in ay lacag gaarayso 61 milyan oo euro ay ku dalbato xidiga Manchester City ee Bernardo Silva. Martin Zubimendi oo sharaxay sababtii uu isaga diiday kooxda Arsenal suuqii January. Martin Zubimendi ayaa daaha ka qaaday inuu iska diiday dhaqaaqista kooxda Arsenal suuqii January sabab la xiriirta in aanan macquul ahayn inuu ka tago kooxda Real Sociedad bartamaha xilli ciyaareedkan. Hogaamiyaasha Premier League ayaa aad u doonayay in ay xoojiyaan khadkooda dhexe bishii January, waxaana ay bartilmaameed ay ka dhigteen xidiga reer Spain iyagoo diyaar u lahaa in ay ka bixiyaan lacagta lagu burburin karo heshiiskiisa. Gaarris ayaa xitaa dalab rasmi ah
oo 52.8 milyan ka gudbisay saxiixa xidigan 24 sano jirka si ay u helaan adeegiisa, laakiin xidiga ayaa iska diiday waxaana uu doorbiday inuu sii joogo kooxdiisa inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. Markii la weydiiyey sababta uu isaga diiday kooxda Arsenal, waxaana uu sheegay sabab la xiriirta sportska, waxaana uu sheegay tababarahayga in aanan dooneyn in aan Real Sociedad ka tago bartamaha xilli ciyaareedkan, gaar ahaan marka la eego xilli ciyaareed fiican ee aan ku jirnay. Halkaas arrin ayaan u diiday inaan ku biiro kooxda Arsenal. guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. fadlan dad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe, share, barnaamijkan asxaabo badan u gaaro. mahadsanidin.